السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta qiimaha badan maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa lesson 15 ama casharkeena 15aad. Casharkeena 15aad waxaynu ku qaadanaynaa qaabka loo xisaabiyo ama loo soo saaro grade-ka qofka. Qofkan ma A plus miya, B miya, qaabka loo soo saaro ayadoo la isticmaalayo Excel ayaan ku qaadanaynaa. Casharka ka horeeyay waxaynu kusoo qaadanay qaabka loo soo saaro qofkan inuu baasay iyo inuu dhacay. fadlan haddii aadan soo daawan soo daawo. Okay, aynu sii gudagalna casharkeena. Waxaynu ku horumarinaynaa equal, kadibna waxaan leenahay if is open bracket. Qoysku markii aan furno waxaan dooranaynaa average-ka qofka ugu horeeya ayaan mar waliba ku misgareynaynaa. Okay, haddii qofkan average-kiisu uu ka bato ama uu ka weynaado, calaamada greater-dan ayaan isticmaalaynaa. Muxuu ka weynaanaa muxuu ka badanayaa 95 haddii uu ka bato 95 qofkan average-kiisa haddii uu ka bato, comma ayaan leenahay, double quotation aan furaynaa, kadibna waxaan leenahay qofkani A plus dheh. Okay, comma mar kale. Haddii qofkani celceliskiisa ama boqoleydiisu ay ka badato 95 haddii kor uu u dhaafo, qofkani waxaa siisaa grade-ka ah A plus C. Intaa waa isla haynaa soo maha? Dhammaan saan ayaan ku wadi doonaa. Mar kale waxaan dooranaynaa average-ka. Mar kale uma baahnin inaan equal ifs aan qorno. Waxaan u baahannahay oo keliya average-ka inaan kilik ku siino. Haddii qofkani average-kiisa uu ka bato, muxuu ka badanayaa 90 haddii uu qofkani ka bato, comma dheh, double quotation. double quotation markii aad furto waxaa gelisaa qofkani waxaa dhahdaa A ayaa tahay, kadibna comma dheh. qofkani celceliskiisa ama natiijadiisu average-kiisu haddii ay ka badato 90, qofkani waxaa dhahdaa A, xarafka A u soo saar. Okay, mar kale average-ka noo dooro, average-ka ku dhufo. Haddii qofkan average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa 85 haddii uu ka bato, comma double quotation. Qofkani maxaan u aqoonsanaynaa A minus ayaan u aqoonsanaynaa qofkani A minus, comma mar kale average-ka dooro. Average mar weli waa isaga dhufanay, isagana wuxuu kusii doonaa row number-ka iyo waa maaragtay column name-ka ayuu mar weliba kusii doonaa. Okay, haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa 80 haddii uu ka bato, comma double quotation. Double quotation marka aad furto waxaad dhahdaa qofkani waxaa siisaa B plus. Qofkani waa B plus, waa 80 haddii kor uu u dhaafo ilaa iyo 84 isaga tirso doone. Kusoo xir double quotation-ka, comma dheh, mar kale average-ku ku dhufo. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa waa maaragta 75 haddii uu ka bato, comma double quotation. Qofkani waxaad siisaa ama waxaad u aqoonsataa B. haddii qofkan 75 kor uu dhaafo ama 75 uu keenaba waa maaragta de B C. Okay, haddii marka comma noo dheh mar kale waa maaragta average-ka noo dooro. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa 70 haddii uu ka bato, comma double quotation. Double quotation marka aad siiso qofkani waxaa dhahdaa B minus, B minus. Kusoo xir waa maaragta double quote maaragta comma dheh. Okay, waxaad doorataa average-ka dooro. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa 65, comma double quotation. Qofkani waxaa siisaa C plus, kadibna ku xir double quotation-ka, comma dheh, average-ka mar kale ku dhufo. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa 60 haddii uu ka bato, comma double quotation C, kadibna waxaa dhahdaa qofkani C ayaa tahay, C ayaa tahay, comma dheh, waa maarta mar kale average-ku ku dhufo. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, muxuu ka badanayaa 55 haddii uu ka bato, hee, qofkani waa comma dheh, double quotation. Qofkani waxaa dhahdaa C minus ayaa tahay, C minus, comma mar kale average-ku ku dhufo. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato, markani haddii calaamada mar weliba greater-dan ayaan isticmaalaynaa ilaa iyo mid ugu dambeysa mooyaane. Haddii qofkani average-kiisu uu ka bato 50 haddii uu ka bato, comma double quotation. Qofkani waxaa siisaa D C. Qofkani waxaa siisaa D C.
double quotation ku soo xir comma dheh mar kale average-ka dooro markan waxaan isticmaalaynaa less than ayaan isticmaalaynaa calaamadda haddii qofkani average-kiisu uu ka yaraado muxuu ka yaraanayaa konton haddii uu ka yaraado comma double quotation qofkani waxaa siisaa fc kadibna close bracket dheh oo qoyska kusoo xir close bracket dheh oo qoyska kusoo xir micnaheedu waa maxay konton wixii ka hooseeya waa valid waa f u qaado ama meeshaas waxaa dhihi kartaa qofkaasi re-exam ama valid oo dhammaystiran ayaad usoo qori kartaa valid oo dhammaystiran ayaad usoo qori kartaa qoyska haddii aad ku xirto waxaad dhahdaa internode okay qofka ugu horeeya hadda muxuu siiyey b plus kadibna double click ku dheh qofka ugu horeeya waa b plus qofka ku xiga sidoo kale waa b plus 84 haye qofkan waa a plus muxuu wataa 100% ayuu wataa okay qofkan waa b minus wuxuu wataa 74 qofkanina 78 wataa waa b okay qofkan fiiri 79 wataa waa b qofkan waaba valid waa f oo maarata 4 iyo xoogaa uu wataa qofkani waa b 76 qofkani waa 80 b qofkani waa b minus oo 70 ayuu wataa qaabka ayaa loo soo saaraa grade-ka ardayga haddii grade alla grade-ku ka keensaday qaabka ayaa loo xisaabiyaa casharkani 11aad halkaa iyo nooga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka